Filimku wuxuu ku bilaabanayaa kadib markii ay 5 sano la noolayd ayeeyadeeda Dayton oo aan weligeeda u ogolaanin inay guriga ka baxdo. Gabar agoon ah oo la yiraahdo Hayden ayaa loo qaaday buuraha Alpha si ay ula noolaato awowgeeda. Dayton waxay shaqo ka heshay magaalada Frankfurt mana qaadan karto gabadheeda Hayden. Sidaas darteed ma aysan dhageysan digniinta deriska ka imaanaysa oo lagaga digayo awowga oo la yiri waa nin kaligiis nool oo laga yaabo inuu khatar ku yahay bulshada. Markii ay buurta u soo socdeen, Hayden kabaha ayay iska bixisay waxayna ku oroday buurta korkeeda sababtoo ah xuriyad ayay ugu jeclayd in ka badan inay qanciso dadka kale. Markii ay guriga yimaadeen, awowgeeda Alfen aad buu ugu xanaaqay wuxuuna u sheegay inuusan rabin inuu gabadha daryeelkeeda u qaado. Dayton waxay iska dhigtay inay Hayden iyada wado, laakiin dab ahaantii waxay tagtay guriga gadaashiisa oo waxay ku tiri halkan joog, iyadana way ka carartay. Alfen wuu arkay oo wuu ku qayliyey, laakiin Hayden waxay u sheegtay iyaduna inaysan rabin inay noloshii hore dib ugu laabato. Awowga oo aan rabin inuu gabadhan noloshiisa ku soo daro, guriga ayuu galay wuuna soo xirtay. Sidaas darteed Hayden waxay seexatay xerada lagu haayo ariga. Subaxdii xigtay, Alfen wuxuu siiyey caanaha ariga kadibna wuxuu geeyey dhismo magaalada ku yaala. Wadaadkii ayaa fiiriyey Hayden oo ku yiri way caafimaad qabtaa oo way xoog badan tahay gabadhaada. Wadaadku wuxuu sheegay inay waajib ku tahay Alfen inuu daryeelo gabadha uu awowaha u yahay, laakiin awowga ma ogolaanayo midaas. Sidaas darteed wuxuu ku yiri 3 maalmood gudahood waxaan u soconaa magaalo kale, waxaan Hayden u raadin doonaa qof beeraley ah oo laga yaabo inuu ka faa'iideysto gabadhan. Markay guriga ku soo noqdeen, Hayden waxay ku tiri maxerada xoolaha ayaan mar kale ku seexanayaa. Alfen wuxuu ku yiri meesha aad rabto seexo. Guriga waxa yaal hal sariir iyo hal kursi. Sidaas darteed Hayden meel kale ayay ka raadsatay waxayna heshay jaranjaro kor u baxaysa. Markay fuushay waxay heshay qol ka buuxa oo caws fara badan waxayna go'aansatay inuu noqdo qolkeeda hurdada. Maalinta xigtay, wiilka arijirka ah ee Peter ayaa u yimid si uu u qaado ariga awowga. Alfen wuxuu weydiistay inuu Hayden maalinta la qaato oo uu wax baro. Alfen wuxuu siiyey Hayden farmaajo iyo hilibka la qalajiyey waxayna aad u faraxday inay maalintaas ariga raacdo oo ay buuraha ku soo ciyaarto, waxayna ka jeclaatay intii ay guriga ku xanimi lahayd sida ay Dayton hore u samayn jirtay camal. Intay dhulka ku ciyaarayeen, Peter qayb ayuu ka cunay cuntada Hayden kadibna wuxuu ka been sheegay arigii inuu cunay. Markaas laba ari ayaa isdagaalay, Peterna ul ayuu ku dhuftay si ay u kala tagaan. Hayden aad ayay uga xumaatay arrintaas waxayna la gashay heshiis ah haddii aad mar dambe ariga garaacin waxaan ku siin doonaa cuntadayda kala barkeeda maalin kasta. Peter wuu aqbalay, laakiin wuxuu ku yiri ha u sheegin awowgaaga arrintan, dadka magaalada waxay leeyihiin Alfen wuxuu horay u dilay qof. Markay Hayden guriga timid, waxay bilowday inay ka cabsato awowga sababtoo ah waxay maqashay sheekooyinka awowgeeda. Alfen wuxuu ku yiri maxaad aaminaysaa sheekooyinka dadka mise waxa aad adigu aragto oo aad maqasho? Hayden waxay tiri waxaan rumaysanahay waxa aan ishayda ku arko oo keliya, waxayna laabta gelisay awowga ka hor intaanay qolkeeda cawska soo seexanin. Maalmaha xigay waxay sii xoogaystay saaxiibtinimada Peter iyo Hayden. Awowgana wuxuu bilaabay inuu farsameeyo alaab alwaax ah si uu soo muujiyo farxadiisa. Habeenkii Hayden waxay ku faraxday inay aragto kursi labaad oo meesha yaala. Tani waxay ka dhigan tahay inuu awowgeeda ogolaaday inay la sii joogto weligeeda. Toddobaadyo ayaa la soo dhaafay, Hayden waxay maalin kasta la ciyaartaa Peter. Xataa timaha ayay iska jartay si ay deganaan u dareento. Maalin Peter wuxuu u sheegay inuusan iman doonin dhowr bilood sababtoo ah wuxuu tagayaa iskuul. Hayden iyaduna waxay rabtay iskuulkaas inay ku biirto. Deriskuna mar walba waxay Alfen ku yiraahdaan gabadhu waxay u baahan tahay waxbarasho iyo saaxiibo nolosheeda buuxin kara. Laakiin awowga wuu ka diiday sheekadaas wuxuuna ku yiri qabowga iyo barafka jiro awgiisa ma awoodo gabadhayda inay buurta ka soo degto. Markii barafku uu bilaabmay, Hayden way caajistay. Awowga waxa uu u sameeyey shimbir yar oo alwaax ah kadibna wuxuu u sameeyey walxo ay ku ciyaaraan. Waxay ku wada raaxaysteen jawiga buuraha. Kadibna wuxuu Hayden geeyey guriga Peter si ay ugu soo ciyaaraan halkaas. Hayden waxay la kulantay hooyada Peter iyo ayeeyadiisa oo indho la'aan ah. Ayeeyadu wax cunto ah ma karin sababtoo ah ilko ma leh, raashinkooduna waa rooti adkaaday oo keliya. Peter iskuulka wuu ku liitaa oo ma fahmayo wax akhriska. Wuxuu leeyahay ariga wax ma akhrin karo, laakiin hooyadiisa ma ogola inuu joojiyo waxbarashada. Hayden markay guriga ku soo noqotay, awowgeeda ayay ku tiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan saaxiibkay Peter la soo kulmay. Sanadihii way socdeen, Hayden waxay la nooshahay awowgeeda si farxad leh weliba. Maalin Dayton way soo noqotay waxayna tiri gabadhayda Hayden waxaan u helay meel wanaagsan oo ay ku noolaato, waxbarasho iyo saaxiibo ay ku yeelan doonto. Laakiin awowga wuu diiday wuxuuna ku yiri maxaad hadda u danaynaysaa gabadhan? Dayton waxay tiri markaas hore fursad uma aanan helin inay ila joogto gabadhayda. Dayton waa ay la hadashay, laakiin awowga ma bedelayo go'aankiisa. Sidaas darteed Dayton waxay u baxday buurta si ay Hayden ula kulanto iyadoo ari la socota. Waxay mar kale u sheegtay iyadoo tiri meel fiican baan ku helay. Hayden waxay tiri anigu halkan ayaan joogayaa. Markaas Dayton waxay u sheegtay iyadoo leh awowgaaga waxaa ku jira rabitaan ah inaad baxdo maxaa yeelay wuu ku jecel yahay oo wuxuu rabaa mustaqbal wanaagsan inaad hesho. Hayden way murugootay waxayna ogolaatay in Dayton ay raacdo. Saaxiibkeeda Peterna wuu arkay waxa meesha ka socda. Markuu Peter arigii dib ugu soo celiyey Alfen, awowga wuu fahmay in la watay gabadhiisa wuxuuna u cararay magaalada, laakiin mar dambe ayay ahayd oo wuu ka daahay. Kadib Hayden waxaa la geeyey guriga weyn ee qoyska Simen, halkaas oo ay kula kulantay Butler, Tinay iyo xitaa tan ugu adag macalimada guriga oo lagu magacaabo Mary. Mary aad ayay u nacday Hayden markii ay aragtay waxayna ku tiri gabadhan waa duur joog ma leh edeb iyo nadaafad midna. Laakiin Dayton waxay ku tiri tani waa waxa aad dalbateen oo ah gabar dabiici ah oo aan magaalada waxba ka aqoonin oo ay saaxiibo noqon karaan Clara. Clara waa gabar aan socon karin oo kursi curyaan ah ku fadhida. Markii Hayden si shil ah miiska ugu riixday kursi
kursiga Clara ayaa been sheegtay si ay Haydin u badbaadiso waxayna ku tiri macalimadii iyadoo leh aniga ayaa khaladka iska leh waxaa jira waxyaabo badan oo Haydin ay u baahan tahay inay barato si loogu aqbalo inay la saaxiibto Clara way soo qabaysatay dhar fiican iyo kabo cusub ayay siiyeen waxay barteen sida miiska loogu fariisto waxaana loo diiday inay guriga ku orodo ama ay ku qayliso Haydin waxay sidoo kale tahay inay wax la barato Clara dadka oo dhan way naxeen markay tiri aniga waxba ma akhrin karo macalimad Mari waxay rabtay inay ka takhalusto Haydin laakiin ma samayn karto ilaa abaha Clara uu safarkiisa ka soo noqdo ilaa markaas macalimadu waa inay Haydin barto akhriska isla markaana la socoto casharada Clara Haydin si dhaqso ah ayay ula qabsatay xeerarka guriga oo dhan laakiin dhammaan dabeecadihii hore ma aysan bedelin weli waxay jeceshahay dabeecadda banaanka taala waxayna habeen walba ku riyootaa buuraha iyadoo joogta markasta oo ay fursad hesho rootiga yar yar ayay jeebka ku qarsataa Haydin iyo Clara aad bay isku soo dhawaadeen Clara waxay u sheegtay waxa ku dhacay markii hooyadeeda ay dhimatay ayay aad u xanuunsatay oo awoodii socodka way weysay inta aysan Haydin imaan ka hor waxay ahayd qof cidlo ah oo gurigan ku xiran abaheedna mar walba safar ayuu ku maqan yahay maalin galab ah Heidi waxay diiday inay seexato duhurkii waxayna weydiisatay Sebastian inuu furo daaqada nasiib darro weli si fiican uma arki karto buuraha Sebastian wuxuu u sharxay in haddii ay rabto inay buuraha aragto waa inay fuusha munaaradda magaalada ee aadka u dheer markaas Haydin waxay si qarsoodi ah u soo saartay Clara waxayna u soo kaxaysay magaalada sababtoo ah Clara weligeeda banaanka looma soo bixinin markay gaareen munaaradda magaalada Clara waxay ku sugaysay albaabka waxaanay Haydin kor u fuushay sida ugu sarreysay laakiin waxay ka niyad jabtay in xitaa halkaas aysan buuraha si fiican ugu arki karin Clara waxay dareentay cabsi laakiin niyadeedu way dhisantay markii ay aragtay nin iibinaya bisad yar yar waxayna go'aansatay inay dhammaantood iibsato guriga markii ay ku soo noqdeen Mari way argagaxday markii gabdhihii ay weysay waxayna shaqaalaha u dirtay inay soo baaraan Sebastian ayaa helay Clarana si dhaqso ah ayay buste ugu qarisay bisadihii si uusan u arkin markay guriga yimaadeen Mari waxay isku dayday inay canaanato laakiin isla markiiba hindiso ayay bilowday sababtoo ah xasaasiyad ayay leedahay bisadihii ayaa ka soo booday jilbaha Clara Marina aad bay u baqday waxayna fuushay miiska taas oo qof walba ka qoslisay fiidkii markii la gaaray ciqaab ahaan Haydin looma ogolaan inay wax cunto oo waa inay istaagtaa geeska qolalka iyadoo derbiga u jeeda inta dadka kale ay wax cunayaan Mari waxay ku dhaaratay haddii ay mar kale qalad samayso inay ku xirayso qol hoose oo cabsi leh Haydin taas kama helin sidaas darteed cashadii kadib waxay qaadatay rootigii ay u urursanaysay ayeeyada Peter waxayna isku dayday inay baxdo balse Mari ayaa joojisay waxayna u sheegtay iyadoo leh waa inaad ku faraxdaa dharka qurxoon iyo waxbarashada aad heshay laakiin waxa dab ahaantii ay ka murugootay Haydin waa markay aragto Clara oo ooyeysa oo qolka ku jirta tan iyo maalintaas hurdadeeda waxay noqotaa mid xun Clarana qolka kama soo baxdo tiina waxay tiri Clara way xanuunsatay oo Haydin ayaa sabab u ah Haydin aad ayay u murugootay markii dhakhtarku uu dhaho Clara way soo roonaanaysaa Haydin way booqatay waxayna u sheegtay iyadoo leh ma ahan inaan ku necebahay laakiin waxaan doonayaa inaan aado gurigayga Clarana way fahamtay laakiin weli ma rabto Haydin inay baxdo iyadoo Haydin la joogta Clara waxay bilowday inay soo baxdo oo casharada si joogto ah u qaadato laakiin Haydin akhriska weli si aad ah uma fahmayso maalmo kadib aabaha Clara Master Seaman ayaa guriga ku soo noqday wuxuuna la socday ayeeyada Seaman Clara aad ayay ugu faraxday inay qoyskeeda ay mar kale aragto labada waalid waxay ku faraxeen inay Haydin la kulmeen aabaha Clara gaar ahaan wuu ku faraxsan yahay in Clara caafimaadkeedu uu soo roonaanayo sababtoo ah fikradiisii ahayd Haydin inay la joogto inay ka dhigayso mid nolol ahaa degan laakiin Mari waxay isku dayaysaa inay beddesho fikirkiisa iyadoo tiri Heidi weli waa duurjoog oo ma taqaano wax akhriska ayeeyadu waxay tiri anigu indhahayga ayaan ku hubsan doonaa waxa halkan ka dhacaya habeenkii markii la gaaray ayeeyadii waxay u akhriday Haydin sheekada hurdada laakiin ma dhammaynin si ay Haydin u akhrido qaybta soo hartay Haydin waxay qiratay inaysan akhri karin sababtoo ah Peter ayaa u sheegay inaanan loo baahnayn ayeeyadu waxay siisay talo iyadoo tiri ha rumaysan wax kasta oo lagu sheego Haydin sheekooyinka way jeceshahay sidaas darteed waxay go'aansatay inay ku dadaasho oo ay si joogto ah u akhriso maalinta xigtay ayeeyadu waxay tiri Haydin waa ay fiican tahay waxayna akhriska ku baran doontaa dhiirigelin sax ah markii ay hesho laakiin gurigan wuxuu ka hor imaanayaa dabeecaddeeda gaarka ah sidoo kale aabaha Clara ma doonayo Haydin inay baxdo sababtoo ah waxay farxad u tahay gabadhiisa Clara ayeeyadu waxay tiri waxa uu rabaa inay gabadhan gurigan sii joogto si uu isaga yareeyo dembiga uu ka qabo inuu Clara keligeed uu ka tago halkan dhibaato kale ayaa dhacda habeen kasta guri dhexdiisa waxaa laga maqlayaa dhawaaqyaab leh albaabadana waxaa mararka qaar laga helaa furo shaqaaluhu iyo Mari waxay rumaysan yihiin in jinniyo guriga ay ku jiraan laakiin aabaha Clara ma aaminsana waxyaabahaas maalin kasta Haydin waxay ku tababartaa akhrinta buugga ayeeyadu uga tagtay ugu dambayntiina waxay awoodaa inay sheekada oo dhan akhriso macallinkii ayaa sheegtay guushaas Master Seaman wuxuu go'aansaday in Haydin ay ku habboon tahay inay guriga sii joogto tani Clara aad bay ugu faraxday laakiin Haydin way murugootay habeen walbana way oydaa ka hor intaanay seexanin habeenada ka mid ah kadib markii ayeeyada ay gurigeeda ku soo noqotay aabaha Clara wuxuu ciyaarayay game markaas ayay maqleen dhawaaqii yaabka lahaa ee shaqaaluhu ay ka digayeen waxay qabsadeen qoryahooda iyagoo moodaya tuugo inay yihiin laakiin waxay heleen Haydin oo iyadoo hurudo soconayso habeen kasta way soo degtaa albaabka ayayna furtaa waxayna fiirisaa meelaha fogfog kadibna waxay ku noqotaa qolka oo waxay seexataa sariirta agteeda sida ay xerada ariga ugu seexan jirtay camal markii dhakhtarku uu fiiriyey Haydin oo uu arkay inay qabow darteed gariirayso aabaha Clara wuxuu raadiyey busta si uu siiyo markuu furay armaajada wuxuu ka helay rootiyo badan oo cusub oo Haydin ay qarin
ilaalinaysay. Markaas Haydin way soo kacday. Dhakhtarkuna wuxuu weydiiyey inay meel ka xanuunayso iyo in kale. Haydin waxay u sheegtay inay laabta xanuunayso. Dhakhtarku wuxuu Master Seaman u sheegay si gaar ah in Haydin ay la xanuunsan tahay walbahaar iyo xanuuno kale oo dareenkeedu aad u liito. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in gurigeeda dib loogu celiyo. Markii hore aabaha Clara wuu diiday, laakiin habeenka oo dhan wuu fikirayay wuxuuna soo xusuustay wixii ku dhacay xaaskiisii hore. Subaxdii marka Clara ay weydiisay waxa dhacay, aabahood wuxuu u sheegay in jinka uu ahaa Haydin oo iyadoo hurudo soconayso sababtoo ah waxay ka murugaysan tahay guriga awowgeeda Alfan. Sidaa darteeda waa in dib loogu celiyo gurigeeda. Clara aad ayay uga xanaaqday oo qaylo ayay bilowday ka hor intaysan qolka u cararin. Haydin way ku faraxday inay gurigeedii ku laaban doonto, laakiin weli waxay ka walwalsan tahay Clara. Waxay isku dayday inay la hadasho, laakiin Clara albaabka ma aysan ka furin. Markii ay timid waqtigii Haydin ay baxaysay, shaqaaluhu waxay u diyaariyeen dambiilo buuxa oo rooti iyo cuntooyin kale ah oo ay buuraha u qaadato. Haydin waxay Master Seaman siisay shimbirtii alwaaxda ahayd ee aabaheeda uu u sameeyey, waxayna ka codsatay inuu Clara siiyo oo uu u ballan qaado inay maalin ay ugu timaado booqasho ahaan. Markay Haydin baxday, Mari waxay tiri hadda ugu dambayn waxaan helaynaa deganaansho, laakiin nasiib darro bisad yar ayaa weli guriga ku jirta. Marina way cabsanaysaa, Tiinana waxay qaadatay bisadii waxayna u magacowday Haydin. Markay Haydin magaalada soo gaartay, waxay markiiba iska bixisay kabihii waxayna la kulantay Peter. Markaas waxay guriga Peter u tageen si ay u soo salaanto una dhiibto cuntadii ay u waday, kadibna waxay u carartay buuraha. Halkaas ayay dharkii quruxda badnaa iskaga bixisay oo ay ku soo noqotay awowgeeda Alfan oo ay aadka u jeclayd. Haydin si fudud ayay ugu noqotay nolosheedii hore. Maalmahaas oo dhan waxay la ordi jirtay Peter iyo ariga, laakiin wax cusub baa isbedelay oo hadda waxay aadaysaa iskool. Jilaalka markii la gaaray, Haydin iyo Alfan waxay u soo guureen magaalada si ay iskuulka ugu soo dhowaadaan. Macalinkeeda cusub waa mid adag, mararka qaarna carruurta waa la garaacaa haddii ay khalad sameeyaan. Ardayda fasalka waxay ku qosleen marka Haydin ay tiri aniga waxaan rabaa inaan qoraan noqdo marka aan weynaado. Laakiin ugu yaraan waxay waxbarashada ugu socotaa si ka fiican Peter oo weli akhriska ku dhibaatoonaya, inkastoo Haydin ay isku dayayso inay caawiso saaxiibkeeda. Wax kasta oo xiiso leh oo dhacaya, Haydin waxay warqada ugu qortaa Clara, waxayna leedahay inay aad u xiisayso oo ay rabto inay soo booqato. Markii warqada Clara ay gaarto, aad ayay uga murugootay sababtoo ah xitaa si fiican uma aysan isku macasalaamaynin. Ayeeyadii waxay ururisay shaqaale badan waxayna Clara u qaaday buuraha si ay Haydin u soo aragto. Markay gabdhuhu isu yimaadeen, Alfan iyo ayeeyadii waxay wada qaateen waqti yar. Ayeeyadu waxay weydiisay in Clara halkan ay joogto maalmo yar iyadoo bixinaysa lacag. Alfan wuu ogolaaday, laakiin lacagtii wuu diiday. Clarana hadda waa martidooda. Hadda Haydin iyada Clara baraysa nolosha buuraha. Clara waxay bilowday inay xirato kaliya dharka khafiif ah, waxayna cuntada u cuntaa si sahlan. Waxay baraya nolosha ariga, waxay seexataa cawska dhexdiisa, waxayna aragtay xidig dhacaya. Waxa kale oo ay maalinta oo dhan la joogtaa saaxiibteeda Haydin, taasoo Peter ka dhigaysa mid masayr badan. Peter wuu diiday inuu ku biiro baashaalkooda, isagoo xanaaqsan wuxuu keligiis raacay ariga. Subaxdii Peter wuxuu helay kursiga curyaaminta ee Clara oo bannaanka yaala. Masayr ayaa dilay, wuuna ka tuuray buurta dhinaceeda, kadibna wuu cararay. Markay reerku ogaadeen in kursigii uu maqan yahay, Alfan wuu garanayay ciddii samaysay falkaas. Wuxuu soo qaaday Clara, Haydinna way soo raacday, waxayna raaceen dariiqa ariga ay raaceen. Halkaas Clara ugu dambayn waxay aragtay buuraha oo dhan, ubaxa iyo balambaalis yar oo indhaha u roon. Markay balambaalisku soo duushay, Clara waxay isku dayday inay qabato, waxayna si lama filaan ah ugu istaagtay lugaheeda. Inay socoto weli way u adag tahay, laakiin maalmaha xiga waxay si tartiib ah oo joogto ah ugu celcelisaa iyadoo Haydin iyo Peter ka caawinayaan inay si buuxa lugaheeda ugu socoto. Peterna qalbigiisu wuu bedelmay kadib markuu mucjisadaas u arkay. Markii ay ayeeyadii iyo aabaha Clara ay soo gaareen si ay Clara u kaxeeyaan, aabbuhu aad buu u caraysnaa, laakiin fikradiisu si degdeg ah ayay isu bedeshay marka Clara iyada oo cagaha ku soconaysa ay u timid. Kadib oohin iyo farxad, ayeeyadii waxay siisay Haydin buug iyo qalin si ay ugu bilowdo qorista sheekooyinka ay jeclayd, waxayna u sheegtay inay iska indho tirto carruurta kale oo ku qoslaya qof kasta wuxuu samaynayaa waxa farxad gelinaya naftiisa. Kadib macasalaameyntii ugu dambaysay ee Clara, Haydin waxay ku noqotay nolosheedii buuraha, laakiin markan buuggeeda qoraalka ayay mar walba la socotaa si ay maalin kasta wax yar ugu qorto. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsani.